Amniga xarumaha dowladda iyo wadooyinka qaar ee dowladdu isticmaasho ayaa si weyn loo adkeeyay. Ciidamada ayaa heegan la geliyay si ay u hubiyaan nabadgelyada caasimadda. Waxaa aad u adag in wadooyinka qaar ay isticmaalaan bajaajyada iyo gaadiidka kale oo markii hore loo ogolaa. Tallaabadan ayaa timid kadib weerarkii Hotel Xayaat ee Muqdisho. Waxaa soo baxaya digniino laamaha amniga ay jeedinayaan oo ah in Al-shabaab ay qorsheynayso weeraro kale oo ay ka geysanayso caasimadda. Ilaa iyo 3 goobood ayaana la xaqiijiyay in ay ka dhici karaan weeraradaasi. Gudaha madaxtooyada Soomaaliya waxaa ka bilowday baaritaano la xiriira amniga. Waxaa la yareeyay gelista gaadiidka marka laga tago kuwa ay wataan madaxda ugu sarreysa Soomaaliya. Fuujignaan dheeri ah ayaa ka jirta wadada Maka Al-Mukarrama ee Muqdisho. Waxaa yaraaday in dadku ay fariistaan wadooyinka maadaama la warinayo in baabuur qaraxyo sidaya caasimadda ku jiraan oo xilli kasta la filan karo inay wax dhacaan. Gaadiidka mararka qaar la dhigo hareeraha wadooyinka ayaa shaki iyo cabsi badan laga qabaa xilligan, iyadoo shalay oo u dambeysay gaari yiilay wadada Maka Al-Mukarrama looga shakiyay in qarax uu saaran yahay, taas oo markii dambe ciidanka amniga ay ku soo baxeen isla markaana hubin iyo baaritaano ay ku sameeyeen. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hadlay waxa uu sheegay in marna aysan isdhiibi doonin, isagoo tilmaamay inay ka go'an tahay dowladda uu hogaaminayo inay soo gabagabayn doonto colaadda daba dheeraatay ee kala dhexeysa Al-shabaab. Dadka falanqeeya amniga ayaa sheegaya in dowlad kasta oo timaada ay ku fashilanto wax ka qabashada amniga guud ee dalka, iyagoo u mara dad aan aqoon durugsan u lahayn. Waana sababta keentay ayay leeyihiin falanqeeyaasha in amniga caasimadda mararka qaar uu xumaado. Maxamed Cabdi Xasan, SMS Somali TV, Muqdisho.